Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Sabna Kista Official. Fadlan haddii aad tahay markuu horeysay aad soo booqato channelka subscribe saar, kambalelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan warbixinada xiisaha badan halkan aan soo dhigno. Haddii aad hore u joogtana muuqaalka noo like gare sidoo kalena sii share gare si uu muuqaalku u gaaro saaxiib badan waana ku maasantahay. Barnaamijkana maanta waxaan ku soo qaadanaynaa filmadii toddobaadka hor masrax la saaray kuwaas oo Harafana Sura Mitri sidoo kale filimka lagu magacaabo Gumrah ganacsigood halka uu marayo iyo sidoo kale filimka sida weyn loo sugayo marka dhankaasi Tamil laga leeyahay filimka lagu magacaabo Rudan. Filimkan waxa hogaamiyay ninka lagu magacaabo Raghav Lawrence. Filimkan waxa laga leeyahay dhankaasi Tamil balse iyadoo tahay filimka inuu marka xarunta Tamil ama kanata fanka loo yaqaan Kollywood laga leeyahay ayaa dhankaasi Telugu filimka laga soo dalbaday oo luqadda af Telugu ayaa filimka laga dawanayo maadaama actor-ka lagu magacaabo Raghav Lawrence dhankaasi Telugu marka shacbiyad ballaaran uu ku leeyahay xitaa marka qayb kamid ah Hindiya Waqooyi Hindi actor-ka marka shacbiyad ballaaran marka uu ku leeyahay oo marka filimkiisa classic ah taxanaha lagu magacaabo Kanchana oo ilaa qayb badan marka ka sameeyay ku dhawaad 3 qayb oo marka ka sameeyay taxanahaas oo marka horor oo marka afindi marka lagu caaday dhankaas YouTube marka blockbuster ka noqday intaas million views marka dhankaas YouTube laga daawaday. Hadda actor-kan door kale saameyn badan ayuu qaatay maadaama filimkiisa cusub Rudan oo toddobaadkan soo bixi doona uu ku matalayn awood badan sidoo kale mass action oo filimkan action loo badiyay sidoo kale dhanka comedy ama shaatirada filimkan wax yar marka lagu daray taasoo ka dhigantay filimka inuu actor-ka uu noqon doono film mass comedy marka uu la imaan doono isagoo actor-kan hore lagu aqoon jiray filimada horarka ama taxanayaasha marka uu sameeyo oo marka cabsida balse hadda actor-kan wuxuu leeyahay door kale ama face kale cusub ina gala oo marka action iyo sidoo kale comedy marka shaatira isku dara filimkan si weyn ay marka looga soo dhaweeyay Tamil sidoo kale Telugu isagoo hadda filimkan ku dhawaad 8 million views filimkan barta YouTube ka daawatay taasoo ka dhigantay soo dhaweyn in caada filimka lagu magacaabo Rudan in marka la kulmay filimka wax shaac laga qaaday Jimcahan foodan uu soo 14 Abriil in marka tiyaatarada daafaca caalamka iyo sidoo kale dhulweynaha Koonfur Hindiya filimka la saari doono sidoo kale filimkan xigta lagu magacaabo Priya Bafani Shankar oo dhawaanahan garaafkeedu marka kor u kacay marka la fiiriyo fanka Tamil filmo kala duwan la sameeyay sidoo kale filimada qaana door muuqaal martiya kaga soo muuqanayso sidoo kale filimkan waxa la arkaa ninka lagu magacaabo Ersarath Kumar ay isqaban doonaan ninka lagu magacaabo Raghav Lawrence marka la fiiriyo sidoo kale filimkan waxa la arkaa ninka lagu magacaabo Iska Tiran oo ah filimkiisa ugu horeeyay marka uu director ka noqonayo wana filimka lagu magacaabo Rudan filimkan waa filim marka isugu jira action iyo sidoo kale thriller khiyaano halka filimkaas director-ku filim ninka lagu magacaabo KB Thurman uu filimka sheekada qoray filimkan toddobaadka foodan uu saay Jimcaha ee filimkan OTT aan laga daawan tiyaatarada waana film aad u xiiso badan gooskiisana aad loo soo dhaweeyay asxaabta filimkan waxa ka soo qoranay ganacsigiisa filimka sida uu ku furmana barnaamijyadan xiga marka ku soo gudbin doona saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan waxa ku soo qaadanaynaa filimada toddobaadka hor masrax la saaray kuwaas oo kala Harafana Sura Mitri sidoo kale filimka lagu magacaabo Gumrah oo dhankaasi Bollywood laga leeyahay haddii aan ka hormaro filimka marka lagu magacaabo Harafana Sura filimkan waxa hogaamiyay ninka lagu magacaabo Ravi Teja halka xigta lagu magacaabo Mega Akashna filimkan ay ku leedahay door arag halka xigta gabadha lagu magacaabo Farxiya Abdullahna filimkan kan aad ka qaatay sidoo kale filimkan waxa laadar ku matalay ninka lagu magacaabo Sushant oo doorka laadar ku matalay halka filimada qaar marka Toro ku matalay sidoo kale filimka sida ognaa 7 bisha Abriil ama Jimcaha soo dhaafanay ayaa filimka tiyaatarada la saaray ku dhawaad 2 maalin filimkan masrax saarayay saaxiibada qiimaha badan haddii aan fiirino filimka marka lagu magacaabo Harafana Sura maalinskooda wuxuu keenay filimkan 8.55 karoor halka maalinka labaad filimkan uu keenay ku dhawaad Antonio 7 karoor taasoo ka dhigantay filimkan maalin ka dameysa inuu marka filimkan hoos u dhac weyn marka uu sameynayo wadarta guudna filimkan wuxuu maraya ku dhawaad 14.5 karoor ayuu filimkan maraya halka qolyaha ay laga filimkan ka heleen ku dhawaad 8 karoor iyagoo marka hore ku iibsaday ku dhawaad 22 karoor hadda filimkan waxa kaga dhiman 14 karoor oo kaliya ayaa filimkan kugu dhiman si marka hit uu dhameystir ku noqon lahaa taasna way ku adag tahay maadaama filimka Jimcadan 14 Abriil ee filimada kala duwan marka soo bixi doonaan waxaana kamid ah filimka lagu magacaabo Shakuntala mar Samantha Ruth Barbahu filimkaas shakatay sidoo kale filimka Rudan hore uga soo hadalnay ayaa marka la saari doona sidoo kale xitaa tiyaatarada qaar waxa saaran wali filimka lagu magacaabo Dasara taasoo filimkan caqabad weyn ku noqotay hubantaan filimkan wuxuu noqon doonaa filim kale oo xidigan marka ka burburay sanadka 2023 haddii filimkan uu socday wuxuu noqon doonaa filim marka average haddii aan fiirino filimkan waxyaabaha kale oo marka ka cusub filimkan waxa lagu kharash kariyay ku dhawaad 40 karoor budgetkiisu marka xambaarsan yahay sidoo kale marka la fiiriyo filimka intaan tiyaatarada la saarin lacag laga helay aan ilaahday lacag lagu kharash kariyay wax kamid ah
dhankaasi Nisaam 6 koror ayaa markaa la geliyay dhankaasi Andera 10 koror ayaa filimka la geliyay Andera Baradesh Telangana marka la isku darana 20 koror halka Karnataka India qaybo ka mid ah sidoo kale overseas-kana 2.85 koror filimkan lagu iibsaday taasoo ka dhigantay lacagtiisa 22 koror in filimkan marka lagu iibsaday qolyaha laga qaybiyaan sidoo kale hadii marka 2 koror filimkan xaysiin lagu sameeyo lagu darana waxay noqonaysaa 25 koror lacagtiisa balse filimka 2 koror lagu darmay maadaama filimkan waxa laga reebay lacagaha marka lagu kharash galay teamka filimkan iska leh ayaa marka lacagahaas loo xisaabiyo inta badan sidoo kale filimka ilaa 940 koror anaha 940 tiyaatar ayaa filimka la saaray sidoo kale saaxiibada qiimaha badan wax soo qaadan kana filimka lagu magacaabo Mitir filimkan waxa hogaamiye kan actorka lagu magacaabo Kiran Abufalan filimkan wuxuu noqon underperformer filimkan sidii laga filayay uu noqon waayay maadaama filimkan day 1 oo kaliya oo marka filimkan soo xareeyay ku dhawaad 65 lag oo kaliya taasoo ka dhigantay filimkan inuu marka dhulweynaha lagu filimkan uu marka filimkan noqdo disaster sidoo kale maanta waxaa filimka lagu magacaabo Mitir waxa laga soo warinayaa dhankaasi lagu in tiyaatarada uu saana gabi ahaanba laga dajiyay filimka lagu magacaabo Mitir taasoo marka loo qaybay tiyaatarada filimada saanaada saaraya sidoo kale Rafanasura taasoo teamka filimkan iska leh caqabad weyn ku noqotay maadaama filimka maalintii koowaad oo kaliya hal koror keen waa ilaa 65 koror filimkan ku istaagay sidoo kale qolyaha laga qaybay filimkan way ku khasaareen maadaama filimka day 1 uu marka hal koror keen waayay intaas ka cusub filimka lagu magacaabo Mitir oo marka Kiran Abufalan marka hogaamiye ka yahay sidoo kale wax soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Gumrah filimkan waa filim Bollywood waxa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Didi Roy Kapoor oo dhawaanaan xidiga marka la xidiga OTT-ga marka xidig weyn ka noqday filimkiisa ugu dambeeyay lagu magacaabo Dalit Manager dhankaas OTT-ga Blockbuster ka noqday haddana filimka Gumrah ayaa marka Jimcihii hore u soo baxay ama 7 bishii Abriil waxaan fiirin doonaa filimka labadii sano lagu horeysay ganacsigu sameeyay hadii aan fiirino filimka day 1 wuxuu keenay 1.1 koror taasoo ka dhigantay filimkan inuu markaas si aan xoog weyn filimkan ku furmin sidoo kale maalintii labaad filimkan wuxuu keenay ku dhawaad 85 lag oo maalintii labaad filimkan ka gaabiyay taasoo ka dhigantay maalintii ka dambeysay filimkan marka hoos dhac sii sameyn doono xitaa hadii maalmaha fasaxa lagu jiro Sabti iyo Axad filimkan hoos dhac weyn ayaa markaas sameynaya taasoo filimkan waxay marka filimkan OTT loo wiciyo maadaama uu yahay filim marka remake filimada hore selfie sidoo kale shees hada Poland hadda tiyaatarada saanaya noqday filim fashilmay teamka filimkan iska leh T-Series dhawaanahan wax ku socda fashil xoog weyn maadaama filimkooda shaashada uu noqdo disaster weyn haddana filimka loo disaster ayaa shirkadda loo diiwaangeliyay waa filimka lagu magacaabo Gumrah asxaabta intaas ay ku cusub filimada aan kaga soo hadlay todobaadkii hore masrax la saaray oo kala filimada marka kala Rafanasura sidoo kale Mitir oo dhankaas lagu laga halka Gumrah oo iska lahayn dhankaas Bollywoodna filimkan oo noqdo filim follow halka labada filim ee lagu marka iska leeyihiin ay noqdo laba filim follow halka Rafanasura oo la sugay dhawaanaha marka korkac sii sameeyo asxaabta intaas ay ku cusub saddex filim aan kaga soo hadlayna muuqaalka wixii ka soo kordhan waxaan ku soo gubin doonaa muuqaaladan xiga ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan muuqaalkan waxaan ku soo afmeynaa saddexda xog xidiga marka superstar oo ku canbaxay taxanayaasha YRF by Universe oo marka taxanayaal hirgalay sidoo kale kuwaas oo qoseeyay fariimaha arrimaha sirdoonka kuwaas oo filimada kala war sidoo kale Bathani sidoo kale Tiger ayaa maanta muuqaal kooban kaga hadlan wax ku eegi doonaa waxyaabaha shirkaddan ka damacsan tahay labada sano marka soo socda iyo sidoo kale filimada kale Spy Universe ee marka shirkaddan marka la imaanayso oo marka ugu hore Tiger 3 oo sanadkan 2023 la daawanayo sidoo kale waxa ku xigi doona War 2 oo marka sanadka dambe 2024 la daawan doono sidoo kale waxa ku xigi doona shirkadda inay sameyn doonto oo la iska hirkoon doono labada taxane Bathani sidoo kale Tiger taasoo marka laga waliyo marka ku kici doono oo marka daawan doono sanadka 2025 oo waxaana la duubi doonaa 2024 bilowga January ee filimka la duubi doona shaqadiisa taasoo ku beegan tahay sanadkan in hal taxan daawan doono Tiger 2024 marka soo bixi doona War 2 halka 2025 marka shirkaddan soo bixi doona marka Bathani FC Tiger waxa fiiri doona saddexda filim iyo sidoo kale hogaamiyaasha ka kala soo muuqan doona waxa ognahay Tiger 3 marka ka soo muuqan doona ninka lagu magacaabo Imran Hashmi oo filimkan ku matay laadar awood badan Katrina Kaifna filimkeeda qaadan doonto doorkeeda Soya halka Salman Khan qaadan doono doorkiisa Tiger sidoo kale filimkan waxa la filayaa marka doorka askariga loo dhiibi doono ninka lagu magacaabo Ashutosh Rana oo hore u soo qaatay doorka Bathani sidoo kale doorka War maadaama taxani ay lagu magacaabo Ekta Tiger sidoo kale Tiger Sindha doorka hogaaminta doorka sirdoonka oo ka soo muuqan jiray ninka lagu magacaabo ninkii Girish Karnad maadaama uu geeriyooday hadda doorkaas waxa muuxin doona ninka lagu magacaabo Ashutosh Rana ayaa filimka lagu magacaabo Tiger 3 ka soo muuqan doona waa sida marka la filayo sidoo kale doorka wax ku qaban doona Tiger sidoo kale Imran Hashmi oo dhankaas Pakistan marka filimkan ku matalay IS ayaa doorka sirdoonka dhankaas Pakistan
filimkaas sidoo kale Pathaan ama doorkiisa Shah Rukh Khan filimkiisa Pathaan marka kaga soo muuqan doona oo muuqaal martiya ku yeelan doona sidoo kale wax xigi doona in marka la sameyn doono markii Tiger tiro marka soo baxo Diwali waartood marka shaqaysa la bilaabi doona sidoo kale waartood filimkan wax isku qaban doona ninka lagu magacaabo Jur NTR iyo sidoo kale Hrithik Roshan sidoo kale filimkan wax la filayo doorkii John Abraham Jimmy oo kaga soo muuqdo filimkan Pathaan in marka filimkan qayb ka noqon doona oo filimkan taariikh hore filimka dib loo celin doona balse filimkan waxa highlight ka qaatay filimka marka ka soo muuqan doona Jur NTR sidoo kale ninka lagu magacaabo Hrithik Roshan waana akhbaar u xiiso badan filimka taageerayaasha ninka lagu magacaabo Jur NTR oo marka noqdo pan India superstar oo dhankaas Bollywood marka u soo dalacay sidoo kale filimkan waxa la sheegay in marka akhrashaan filimka Salero marka ku qaadan doono ilaa 100 karoor taasoo xidigan filimka sicirkiisa marka kor u sii qaadi karta ilaa marka filimkan si actorkan marka salary soo gaari karo 150 karoor oo marka baribahaas marka awoodiisa marka soo qaban doono sidoo kale filimkan waxa la sheegay in ninka lagu magacaabo Ayan Mukherjee oo filimkan uu ka noqon doono director halka uu ahaa ninka lagu magacaabo Siddharth Anand sidoo kale waxa ku xigi doona halka marka sheekada marayso sanadka cusub 2024 waxa shaqaan marka la bilaabi doona Pathaan FC Tiger oo marka la iska keen doono Salman Khan sidoo kale Shah Rukh Khan sidoo kale filimkan ama qaybtan waxa director looga dhigay ninka lagu magacaabo Siddharth Anand oo hore ugu cambaxay waar sidoo kale Pathaan sidoo kale hadda uu sameeyay filimka lagu magacaabo Fatal Hrithik Roshan uu sameyn doono sidoo kale waxa la sheegay Pathaan FC Tiger wax ka soo muuqan doona qof kasta marka ka soo muuqda taxaya ama loo yaqaan YRFS by University cid kasta marka ka soo muuqata marka ka soo muuqan doonto Pathaan FC Tiger waxa la film doona sanadka 2025 big project in noqono filimka lagu magacaabo Pathaan FC Tiger oo marka la imaanto shirkadda lagu magacaabo Bollywood iyo sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Stage Films oo marka hogaamiyaha Aditya Chopra sidoo kale filimkan lacag wali in ilaa 500 karoor filimkan inay marka ku bixi doonto ilaa waxa laga yaabaa lacagtiisa inay 1,000 karoor filimkan inay marka gaarto saaxiibada qiimaha badan barnaamijka ku falaqeyn doona filimada kala waartu iyo sidoo kale Tiger Trio sidoo kale Pathaan FC Tiger intaas ay ku soo gabagabeynayna wixii ka soo kana filimkan waxaan ku soo gubin doonaa muuqaaladan xiga fadlan haddii aad ka heshaan muuqaalka noo la garay sidoo kale sii share gareeya soo muuqaal ku gaara saaxiibada waan ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.